shirka aynu isugu nimid iyo xisbigeenimadeena iyo doorashada maxaynu ka doonaynaa waxaynu tabanaynaa inaynu in badan tabashada ka yarayno adduunyada waa tiro 9 ma gaadho oo qof dhammayn karo ilaaha adduunyadii waa la dhameeyey oo hawshii waa la dhameeyey ma jiro dowlad kastoo xoog weyn laakiin dhibaatooyinkaa jooga in la maareeyo ayaa xisbiga loo samaystay oo dadku sugin dhibaatooyinka ina haystaa way badan yihiin waana jiri doonaan bini aadmiga dhibaatada ma wada xalili karo laakiin wuxuu ku kala hormaraa kolba siduu xalilay dhibaatooyinka qaarkood halkan waxaa ka hadlay agoomihii iyo xaasaskii mujaahidiintii noloshu waa halgan maalin qorigaa lagu dagaalamaa oo naftaa la dhiibayaa oo loo dhimanaya xorriyad waxaa laga doonayaa dhimashada in la helo noloshaa lagu jiro mid ka wanaagsan in ubadka looga tago hadday shalay toola ahayd tii dagaalku socday aynu qaxootiga ahayn aynu banaanku way fadhinay maanta ugu yaraan guryo waynu fadhinaa taclayna waynu habsanayn waynu raadinaynaa sidii hore waynu ka deganaa laakiin weli wixii aynu halgamayna waa fog yahay oo geedigu waa dheer yahay ayaan la soo gaabin maanta waxa weeye si aynu ugu hiirino kuwa dhintay si aynu ugu hiirino dadkii jihaadka soo galay dhaawacada naafada si aynu ugu hiirino kuwa alwoomaha ah waa inaynu ku talagalnaa inaynu mustaqbalka somalilan oo dhan dhisno ee aynaan u eegin mid qoysqoysa markaasay raggii dhintana iilka qabanaya maxaa ugu horeeya halkeenu ka bilaabayna somalilan 20 sano ka hor markii halganka ugu jirtay waxay lahayd 3 ciidan oo kala duwan mid daraawiish buu ahaa mid horyaal buu ahaa midna asana iyagu isku ay isku weydiinayeen ciidamadaasi ciidamada ciidan ee kale daraawiish iyo horyaal cadawgeedu sahaynay ayaa warqaada inoo kala sheegay waynu isku dhacnay nasiibana waxaanu nahay dalka qura ee khaalada dagaalkiisii iyo wixii dhex maray iyadoo ciidamo soo gurman afrikano soo gurman ajnabino soo gurman iyagu ka heshiiyey ee ka dhamaystay ee ka walaaroobay ee dowladooda dhistay ee maanta ciidan isku mida leh ee kuwii ugu dambeeyana aynu ku soo dhammayno shirarka oo boogays iyo kuwii kale laascaado ka dhacay oo maanta ka yimid qofka waxa uu faani karaa marka uu isu keeno xadka bari iyo ka galbeed dambeeya Soomaaliland dadkooda marka uu mideeyo ee is aaminaan ee wax wada dhistaan ee cududooda iyo caqligooda isu geystaan ay u faani karaan xisbiga kumida tuudooniya ka galiya waa taasoo ku mideeyay qodobka labaad doonayna ku mideeyo kumida waa cadaaladda horta ilaahu baa cadaaladda haya بلاد موسيقى الدولة عدالة ولا ما كانوا لكن عدالة وحنا ولا ما كنا يا مركز حير كتبت الشرع قال الفنون الشرع قال لنا وكسر يوقف ربع ما حولناها ضرب وصل ريح الكلام هذا وحولنا من الشرع محكمة مو بيكرو حدو شرع مو قفوا قفوا يقارنا ما يحولناه الجالس كان في التاريخية سياسة ولا تاريخ جاها محمد حاتونا عقال البيج بين كل قارة حال أبو كنا بس وحيدونا قف كستو أو ذلك الجوع إنه شرع مكسر هي أو أرو نقطة كقاركينا شرع ولا قرنين قار ما شرع المقاضي وحيدونا ذلك بقاريس إيو بقارها ذلك موليه إن أرو كرب حد وقضى صاري oo billionaire noqdo iyo inta badan oo waqtiga lagu taana kulmiye wuxuu doonayaa dadka ilaahay baa nin walba dhaqaalisa siiyay caafimaadkiisa market xor ayuu leeyahay suuq xor ah qofku inuu taajir noqdo oo lacag shaqaysto sharciga ogol diinteena ogol laakiin waa inuu sifa xalaal ku shaqaysta laakiin waa inuu bixiyaa xuquuqda diiniya iyo sharciga loogu leeyahay si mujtamacu soo gaaro oo aynana madabaqad jiidataba lacag leh iyo dabaqad bakhtaro taala xisbiga kuna kan isku weyn doono shaqada wada oo ay maanta cod ku bixina taasooyinka badan ee laga yaabo inay dad badan oo dad soo halgamay tirsanayaan waxaanu kaga bixi karaa keli ah inaga oo ilaalina qarannimada iyo sharciga inaga oo ka hortagna ereyga musuq maasuqa
musuqmaasuqa ugu horeeya qabyaaladda iyo nin iska xigsiinta iyo kana aniga ayaa soo daa iyo kana innaga maaha muusiqa lagu sheega halkaasu ka bilaaba dee tala xatooya dadka iyo hantida iyo lacagta ayuu taga haddaynu taa ka adkaysano oynu ka hortagno xuquuqda aynu tabana markaasaynu gaari karnaa waxaan ku soo urunaya haddaynu kulmiyo nahay waxaynu caddaynaynaa markaynu doorashada gelayno waxaynu ka ku bixinayno qofkaynu dooranayna waxaynu ka rabno dhibaatadayna hortaana saynu uga baxno intaa markaynu isla caddayno ayaynu hawgelaynaa dalku kuma socon karo muhmel kuma socon karo marka lay doorto ayaa wax qabanaya horta codkaysiya oo ku shubto maya qofka la dooranaya waa inuu jeexaa wadada uu doonayo inuu maro ha lagu doorto ama ha lagu diiday qofka isla xaq u leeyahay qofka doorto laakiin qofka la doonayo waa anigu wadadaasaan maraya waxaa doonayaa wadada maraya inay noqoto inuu marka hore sharci u shaqeeyo laba inaynu ka hortagno qabyaaladda waayo caamilka ninka la idhahdaa reerbuka mas-uuliya inta maktab qorka isaagu ka midi hadduu caaqil waliba yidhaahda madaxweynahood dhaqaaqi maysi madaxweyneho waanu ku hanjabaynaa tadhacdo waa la yaabi saaynu qaran noqonna waa imse caaqil soomaaliya suldaan suldaan waliba reerbu suldaanihii hor jooga soomaaliya hadduu waa intaa soo reer salaadiinteeduna maanta tira male hadduu suldaan waliba t v kala soo fadhiisto aniga suldaan kale tadhacdo waa la yaabi madaxweyne ma dhaqaaqi kartid qaranka ma dhaqaaqi kartid dee qaran noqon mayo qof waliba mas-uuliyaddu intay tahay waa ku ekaada qarankan waxaa loo doortay golayaal oo dadku codkooda siiyeen iyagaa matala waa golaha baarlamaanka iyo golaha guurteedu sharcigiisa ugu doonaanis doono iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka qofka orankanaya hadalka qaranka ayaan u hadlaya waa qofka la soo doortay golayaashaasa qofka kale hadduu suldaan yahay hadduu caaqil yahay hadduu sheekh yahay wuxuu matalaa qayb ka mida qaranka ee qarankooda ku hadli kara magaciisa qodobadaynu doonaynu isla eegna waa kuwa isla markaana waxaynu ogol lahay in sheekha iyo taajirka iyo suldaanka iyo caaqilka la dhegaysto taladooda iyo xogogaalnimadooda iyo waxay qaran ku baneeyaan laakiin waa inaana iyagu qarankii oranin annaga ha joogsanayna ama saan doonana dhaaf maayo waana dhibaatada ugu weyna maanta soona hortaagan marka tvya la daawado caalamka oo laga daawado caalamka oo dhan ee somaliland tvgeeda la daawado waa la yaaba ma qaranba ma qabiilba ma dad mugoyas haystaa seeban mahabaa la sumay waxaynu u baahannahay xeelku waa maxay oo waxa lagu heshiiyey inaynu isa sharaxno dhibaatadayna haysata inaynu isla fahno dhibaatadayna haysata qof waliba qadarin iyo maamuuska in buu ku leeyahy hadduu intiisoo dhaafo waa lasdhex yaacaya haddii lasdhex yaacana qaran noqon mayna meel gaari mayn markaa waxaynu qaadan haddaynu kumiyanahay in qaarannimadu ka weynaato qorannimada in qaarannimadu ka weynaato qofka in qof uu qaranka ka dambeeyo haddii uu arihayo iyo talana uu waddo u soo maro oo uu u leeyahay dimuqraadiyadeenu oranay iyo dhaqankeena iyo islaamnimadeenu waa shuura hala tashado laakiin hala tashada maaha qofku qarankaa ka adkaado sida imka dhacaysa t v-ga nin soo fariisanayo taasaynu kaga bixi karaa inu qaran ku dhisi karaa marka qaranka la helo marka sharci la helo ayaa dhaqaalada samayn karaa markaasaa dhibaatooyinkeena bogi karaa waxaan kusoo gabagabaynayaa dadka qaarkood ilaahay wuxuu u diray inay qarankan u dhintaan oo dhiigooda u bixiyaan oo ay caruurtooda u iloobaan oo ay xaaskooda u iloobaan waxaa maanta joogaa laga yaabaa foodka u baaleeya ee ciidanka ugu fog nin 40 sano u dambeeyey geed hoos seexanayay oo qaranka daafacayay oo shan dhaawac qaba oo caruurtiisa aan dan ka lahayn iskuul miyay tageen miyay wax cuneen miyay cisbitaal tageen waxaa laga yaabaa ninkaas inuu taa kala firin ee uu ka fakiro qaranka ilaali iskama diidi karo ninkaas ma oran kara si hayeelin jirkiisay ku abuuran tahay dareenkiisay ku jirtaa waa iyo kuwaas waa askarta waxaa ceeba waxaa la yaab leh inuu ku faano nin anigu waliya xabad mahdi askarta ma jeceli oo sad qaran u jecesha haddaan askar jeclay
كنفتي سووا هذا الدين فتعيش وايو نعس ما لك صاير إذا صودا يعني قارك كله قارك محاك واجبه dadka saanadka lagu horay inuu qaranku abaalkooda siiyo qaranku dhan bay waajib ku tahay inuu abaalkooda u celiyo oo hadduu dhaqaale u celi waayo sharaf iyo maamuus iyaga iyo ubadkooda qoyskooda celiyo tani doon inuu galana waa taa aad iyo aad